Media waxay halkan idinku soo gudbinaysaa barnaamijyo iyo muuqaalo kala duwan, muxaadaro, waxbarasho, wacyigelin, bandhigyo iyo qisooyin dhab ah. Fadlan ku soo biir channelkeena Banooda Media. Maanta waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qiso cajiib ah oo ku saabsan kursi ama mansab jaceylka. Hadda ka hor baa waxaa jiri jiray nin boqor. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa boqorkii wuxuu doonay inuu aado safar dheer oo qaadan doona ugu yaraan 5 bilood iyo ka badan. Boqorkii wuxuu isugu yeeray xubnihii ugu sarsareeyay boqortooyada ay ka mid yihiin qaraabadiisa, wasiirkiisa, la taliyaashiisa iyo dhammaan howlwadeennadii boqortooyada. Waxaan isugu yeeray inaan idinku wargeliyo inuu isoo galay safar degdeg ah oo aan muddo dheer ku maqnaan doono, ayuu hadalkiisa ku bilaabay boqorka. Haddaba maadaama aad maanta fadhigan ku dhan tihiin mas'uuliyiintii ay ka goday talada boqortooyada, waxaan idinka doonayaa inaad igala talisaan qofkii igu simi lahaa kursiga muddada aan safarka ku maqanahay, ayuu raaciyey boqorka. Waxaad haysataan muddo 2 maalmood ah inaad isku soo raacdaan qofkii kursiga ku fadhiisan lahaa muddadaas, ayuu hadalkiisa ku soo xiray boqorkii. Maalintii saddexaad baa la isugu yimid kalfadhigii lagu ballansanaa iyo in mas'uuliyiintii hawsha loo diray soo bandhigaan qofkii ay isku soo raaceen inuu noqdo kusimaha boqorka. Kalfadhigu waa furan yahay, soo daaya go'aankiina iyo qofkaad isku soo raacdeen inuu igu simo kursiga, sidaasi waxaa yidhi boqorka. Wasiirkii baa hadloo wuxuu yidhi, boqorow, arrinta waan isku mari weynay, qaarba meel bay ku dhufteen. Qaarkeen waxay qabaan inuu kusime kuu noqdo walaalkaa Hebel, qaar kale waxay la tahay walaalkaaga kale Hebel, qaar kale waxay iyana leeyihiin wiilkaaga yare Hebel, laakiin aakhirkii waxaan isku raacnay walaalkaa Hebel inuu kugu simo kursiga. Waad ku mahadsan tihiin tala jeedintiina, kalfadhigu waa noo xiran yahay, go'aanka aan qaatana kulanka berito ayaad ku ogaan doontaan. Waxaa sidaasi hadalkiisa ku soo xiray boqorkii. Aroortii xigtay waxaa la isugu yimid majliskii boqorka. Boqorkii ayaa isagoo eygiisa wata soo galay, intuu kursigiisii ku fadhiistay ayuu eygiina dhinaciisa taagan yahay. Kadib markaan dhinac walba u gorfeeyey taladii aad shalay soo jeediseen, waxaan go'aan ku gaaray in eygaygan uu noqdo kusimahayga muddada aan safarka ku maqanahay, ayuu yidhi boqorkii. Waa la wada yaabay, laakiin yaa hadli kara haddaad hasasho qoortaada maqan. Eygan kursiga aan ku fadhiyo ayuu ku fadhinayaa, fadhigiisa ayaa maalin walba 3 jeer lagu siinayaa cad weyn hilib jiir ah, ayuu raaciyey boqorkii. Boqorkii safarkiisii ayuu aadaye, eygii ayaa kursigii lagu fadhiisiyey sidii uu amarka boqorka ahaana maalintii 3 jeer hilibkiisii meesha ku ruugayey. Eygii dhogortiisii way isbeddeshay, 2 lafood intuu noqday aar libaax u ekaaday. Dhowr bilood kadib, boqorkii wuxuu ka soo laabtay safarkiisii. Qasriga hoygiisa ayuu toos u aaday ka hor intaanu xafiiska imaanin. Boqorkii wuxuu ku wargeliyey aroornimada berito inuu soo fadhiisan doono xafiiska, sidaa darteed eygii kusimaha ahaa guriga hala keeno. Wasiirkii iyo la taliyaashii waxay aadeen xafiiska si ay eygii guriga u keenaan, xafiiskana loo diyaariyo boqorka. Eygii wuu diiday inuu kursiga laga kiciyo. Qof walboo u soo dhowaada iska caabin xoog leh buu ka horgeeyaa. Mid uu qaniinay, mid uu xanqriiftay iyo mid uu sas ku riday ayuu ka dhigay iyagoo dhan. Eyga lama dili karo, waa eyga boqorka. Si ay yeelaan markay waayeen oo maalintii badhkeed ilaa habeenkii la is-hor fadhiyey ayay go'aansadeen inay boqorka ku wargeliyaan waxa dhacay. Boqorkii wuxuu amar ku bixiyey in eyga la dilo, laakiin aan meeshiisa laga qaadin ilaa kulanka beri subax la isaga yimaado. Maalintii xigtay waxaa la isugu yimid saaxadii boqorka. Warkii waxaa furay boqorka wuxuuna yidhi, haddaan taladiina qaadan lahaa oo walaalkay ku fadhiisin lahaa kursigan, maydka walaalkay buu ahaan lahaa midka maanta yaala meesha eyga yaalo. Way fiicnaan lahayd sida boqorka caqliga badnaa uu yeelay, inaan marka horeba la istusin mansab iyo mas'uuliyiinta maanta horboodaya siyaasadda maamulka Soomaaliya. Waaba la istusaye sidii looga qaadi lahaa bay howli ka taagan tahay. Ha noolaato Soomaaliya. Waxaa soo diyaariyey Isaak Hassanow. Melbourne, Australia.